markaana aan eegno codsiga ka yimid Israa'iil. xukuumadda Israa'iil ayaa waxay codsi u dirtay wadamada khaliijka taasi oo ku aadan inay la midoobaan Israa'iil isla markaana ay kasoo horjeestaan dowladda Iiraan. wasiirkii hore Israa'iil u qaabilsanaa xiriirka Ayuub Kara ayaa ugu baaqay wadamada khaliijka inay garab istaagaan Israa'iil isla markaana ay kala midoobaan dhanka ammaanka iyo dhaqaalaha, isagoo sheegay in ay u garab istaagi doonaan dagaalka ka dhanka Israa'iil sida uu qoray Shahab News Agency, kaasi oo warbixintaani daabacay gelinkii dambe ee shalay. Master Kara ayaa waxa uu xiriir wanaagsan uu la leeyahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, waxaana boggiisa Twitterka uu ku soo qoray ahdaafta ama goolka laga leeyahay midowgan inay tahay sida looga soo horjeesan lahaa cadow uu ku tilmaamay inay tahay Iiraan. qoraalkan uu bartiisa Twitterka ku soo qoray wuxuu yimid kadib markii Iiraan ay shaaca ka qaaday in ay qof kasta oo ka hor imaada ay meel iska saari doonto Iiraan, isla markaana ay ka hor imaan doonto oo ay duqeyn doonto magaalooyinka Haifa iyo Dubai oo Imaaraadka Carabta ah. waxaana Karo uu ku dhawaaqay in taasi ay tahay mid gardarro ah oo loo baahan yahay in iminka dalalka khaliijka ay kala midoobaan Israa'iil dhanka ammaanka iyo dhaqaalaha si looga hortago hanjabaadaha dowladda Iiraan ee bariga dhexe. waa hagaag macluumaadyo kale ayaa inoo soo socda, balse markaan aan soo koobno macluumaadyadan. agaasimaha telefishin isboorti oo laga leeyahay boqortooyada Sacuudiga Ghanim Al-Qahtani ayaa waxauu ka mamnuucay inay kasii shaqeyso telefishinka gabar u dhalatay Falastiin oo lagu magacaabo Razan Malash kadib markii boggeeda Twitterka ay kusoo qortay garab istaag ay u muujinaysa dadka Yemen. wargeyska lagu magacaabo Middle East Monitor ayaa warbixintaani uu qoray, waxaana uu sheegay in gabadhan ay kusoo qortay boggeeda Twitterka eedeymo u jeedinaysay boqortooyada Sacuudiga oo ay kala jeeday in kaliya ay duqeynayaan dalka Yemen oo aynan duqeynaynin Israa'iil. in laga mamnuuco gabadhan inay kasii shaqeyso telefishinkan arrimaha ciyaaraha ka falanqooda ayaa ka dambeysay kadib markii boggeeda Twitterka ay ugu soo qortay sidan: dagaalyahanada ama diyaaradaha Sacuudigu kaliya waxay duqeeyaan Yemen oo ma duqeeyaan Israa'iil. Al-Qahtani ayaa wuxuu xaqiijiyay in gabi ahaanba shaqada dhanka ciyaaraha laga joojiyay gabadhan oo arrimaha ciyaaraha falanqeyn jirtay. marsii horeysa ayaa sidan oo kale gabadhan laga ceeriyay telefishinka NBC kadib markii ay boggeeda Twitterka sidan si lamid ah eedeyn ay ugu jeedisay boqortooyada Sacuudiga, isla markaana ay kaga hor imaatay aqoonsigii madaxweyne Trump uu u aqoonsaday magaalada Jerusalem inay tahay caasimadda Israa'iil, waa dhulka Falastiiniyiinta ah. arrintaas ayaana mar kale telefishinka looga ceeriyay. dhinaca kalena dowladda Iiraan ayaa waxay ogolaatay inay sanduuqa madow ee duuba ama kaydiya xogta diyaaradda ay u dirto dalka Faransiiska kadib markii ay caddeeyeen qaladkii ay galeen ciidamadooda militariga oo gantaal ay ku dhifteen diyaaradaasi oo dad rakaab ay la socdeen. diyaaraddu ay la socdeen 176 ruux ayaa gebi ahaanba geeriyootay, waxaana iminka lagu waramayaa in waaxda saadaasha hawada ee dalkaasi Iiraan ay ogolaadeen in ay la wadaagaan macluumaadka sanduuqaasi madow dowladda Faransiiska. dowlado badan oo Canada, Faransiiska iyo Mareykanka ka mid yihiin ayaa waxay ka dalbadeen in sanduuqani madow ay la wadaagaan si baaritaano dheeraada loogu sameeyo diyaaraddaasi iyo burburkeedaba. dhinaca kalena dibadbaxyo xoogan ayaa ka bilowday magaalooyin waaweyn oo ka tirsan Iiraan. boqolaal dibadbaxyaal ayaa isugu soo baxay wadooyinka caasimadda Iiraan ee Tehran iyaga oo muujinaya care ay u qabaan dowladda, uguna yeeraya beenaalayaal inkiray inay soo rideen diyaarad rakaab oo ay saarnaayeen oo laga leeyahay dalkaasi Ukraine. dibadbaxyada ayaa ka dhacay banaanka ugu yaraan 2 jaamacadood iyada oo la sheegay in booliisku u adeegsadeen sunta dadka ka ilmeysiisa si dadkaasi ay u kala eriyaan. madaxweynaha Mareykanka ayaa bartiisa Twitterka taageero ugu muujiyay dibadbaxayaasha. Iiraan oo shalay qiratay inay si kama ay u soo riday diyaaraddaasi 3 maalmood kadib burburkii diyaaradda oo ay ku dhinteen 176 ruux ayaa iminka lagu waramayaa inay doonayso in sanduuqaasi madow ay la wadaagto dalal dhowr ah. duulimaadka diyaaradda Ukraine International Air ayaa Arbacadii lagu soo riday meel u dhow garoonka Imaam Khomeini ee magaalada Tehran waxay kadib markii halkaasi ay ka duushay iyada oo saacado yar on kadibna ay Iiraan gantaale ay ku tuurtay 2 saldhig oo ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin magaalada Baghdad ee caasimadda dalkaasi Ciraaq. weeraradaasi waxay Iiraan ugu jawaabaysay dilkii Mareykanka uu u geystay Qasim Soleimani oo lafdhabar u ahaa militariga Iiraan, kaasi oo ku dhintay weerar ka dhacay magaalada Baghdad 3 bishan January 9 maalmood ka hor sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dowladda. dadka ku dhintay diyaaradda ayaa badankood u kala dhashay dalalka Iiraan, Canada, Ukraine, Ingiriiska, Afghanistan iyo Jarmalka, kuwaas oo duqeynta diyaaradda lala eegtay ku dhintay. xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Mark Pompeo ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku soo wadaagay muuqaal laga soo qaaday dibadbaxayaasha ka socda Iiraan isaga oo yiri codka dadka Iiraan waa u cad yahay, waxa ay ka dalbanayaan beenta dowladda, musuqmaasuqa iyo ilaalada kacaanka ee dowladda